saameynta uu geystay qaraxii lagu weeraray hotelka Jazeera ayaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay mashaqadan ka sukow waxaa muuqanaya qoysas badan oo ku gurya beelay qaraxaas sarta u jeedaabe jiif wasarri wareeg soo jeed meeshan wiil la soo waxaan soo galay mid ka mid ah guryaha aadka oo burburka ka muuqdo waxaynu wiilaysa gabar yar oo qoyska gurigan degan ka mid ah halkan waxaa ku imaanay ogolaashaha oo inoo ogolaadeen dadka guryahan iska leh gabadhan waxay telefoonka kula hadlaysaa adeerkeed oo meel fog jooga waxay ku wargelinaysaa in gurigeedu uu burburay laakiin waxay noo sheegtay in iyada iyo wiil ay dhashay ay qolkan jiifeen marka uu qarax dhacayay adeer cumar way banaanka jirta guriga dhexdiisa ku jira alaab waxaan kala dalaa guriga oo idil adeer guryaha burburka uu ka muuqdo ayaa barbarka ku haya dhabaha dheer ee xiriiriya isgoyska kiiloomitir 4 iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho guryahan waxa ay ka agdhow yihiin xarunta hay'adaha qaramada midoobay ee ku leedahay magaalada Muqdisho iyo hotelka Jazeera taas ayaana keentay in wax ka badan 4 jeer ee dadka degan halkan ay waxyeelo ka soo gaarto qaraxyo iyo weerar lagu qaaday hotelka Jazeera iyo xarunta qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo waramay deegaanka kalluunka mana ahan midii ugu horeeyay ee nagu dhacda waxaan dhihi karnaa waa midii afraad ama midii shanaad waaye laakiin masiibada intaan la eg wali ma soo gaarin xaafadda si caam ah ayay u camimtay bilaaw ilaa dhammaad kalluunka dhibaatadani waa gaartay ma jirto laba iyo saddex guri waxaan ahayn oo kalluunka ka fayoobay ma jiraan marka waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka muslimiinta ama muxsiniinta inay kala qayb qaataan dhibaatada gaartay dadka walaalahooda ayaan u sheegaynaa annaga hadda cid kale oo aan gaarsiino hadda ma ogin marka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in loo gargaaro dadka masaakiinta ee dhibaataysan ee aad aragteen dad badan ayaa aaminsan in qaraxan uu aad kaga duwanaa qaraxyo badan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana qaraxan loo adeegsaday gaari weyn oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa waxaana wararku sheegayaan in qaraxan ay ku dhinteen dad ka badan 13 kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Aways Maxamuud Jilcow Royal TV Muqdisho